kuwaas ku kala sugan adduunweynaha. Juweri waxaa jirta sheekooyin aad u xiiso badan ay leedahay bulshada Fountain of Life, dad badan oo Soomaaliyeedna ay aad u caawisay faa'iidada xagga caafimaadka. Ma jiraan xanuuno gaar ah ama waxyaabo gaar ah ama si kale oo caafimaad ay ka caawisay ama ay ku fududeysay bulshada Fountain of Life muddada ay isticmaalaysay? waxyaabaha horta hadda dadka yar faansiyo Fountain of Life waa yani goojo yar ama kolba saad u taqaanin waa dhala yar oo like sharoobo oo kale aad u yar, marka waa like saliid oo kale. waxyaabaha marka cajiibka ay ku tahay waa geed baa laga sameeyay dabiiciya oo just loo yaqaano Norwegian spruce. marka geedka laga sameeyay waxyaabaha ay qaniga ku tahay waxa weeyaan 3 wax oo waaweyn oo inay tahay antioxidant. marka leenahay waxyaabaha antioxidant-ga waxyaabaha inaga yareynayso ama maxaa la yiraahdaa ay inoo qabanayso waxa kamid ah inuu yani jidhkaagii ama xanuun soo galo sida xanuunada dadka wadna xanuunka oo kale, kansarka oo kale, waxyaabahaas ay difaac kaaga noqonaysaa. waxyaabaha free radicals ku inoo keenaan waxyaabahaas ay maxaa la dhahaa ay ka caawinaysaa dadku intooda badan waxyaabo imka inagu marka la eego ma jirto inta badan dadku waxyaabo isku dheelitiran cuntooyinkooda oo kale, lignitigooda oo kale inuu qofku ilaaliyo. marka waxyaabahaas ayay ka caawinaysaa. sidoo kale waxay leedahay ay qani ku tahay antimicrobian oo haddii waxyaabo ay qofka noqoto inuu jirkiisii ay soo galayaan oo ah sidii markaan leenahay antimicrobian like bacteriadii, viruskii, wixii jirka xanuun ku keenayay oo kale oo dhan ay kaa difaacaysaa inay jirkaagii soo galaan. marka waxa jiro kaleeto inay anti-inflammatory tahay oo haddii barar oo kale caabuq oo jirkaagii ku jiro ama bayn uu kala dareemayo inay kaa qabanayso. waxyaabaha kale markaa dhalada yar waxaa ku jira dhibco ama yani drops saliidaas geedka laga sameeyey ah oo 600 oo drops yani dhibcood ay dhan tahay. 600 dhibcood waxa ku jira yani wax u dhigantaa 5 dhibcood kamid qofka waxa loogu talagalay inta badan dadka miisaankooda loo eega, laakiintii haddii qofka 5 dhibcood oo kale tusaalaan idin soo qaadaya uu 5 dhibcood oo kale uu qaato subaxii oo kale, qofkaas wuxuu u dhigan yahay qof qaatay xadiga 250 koob oo yani laga sameeyay sharaab ama saladka geedka loo yaqaano oo Soomaaliinta badan wax yani khudaarta marka la eego wax badan inagu ma isticmaalo ama ahmiyad ma siino. tufaaxa waa la wada yaqaanaa yani waxyaabaha uu qaniga ku yahay sidoo cajiib u yahay. 900 oo koob oo tufaaxa haw qofna ma cabbi karo maanta hal koob oo tufaax hadda cabtida alxamdulillah, laakiin 2 koob 3 koob 900 oo koob oo tufaaxa inaad cabtay ayay u dhigatahay. sidoo kale 25 koob oo green tea-ga waa la yani waxyaabaha uu ka kooban yahay sidana like weight-ka oo kale imka dadkeenu isticmaalaan inay ku dhimaan. marka yani horta saas cajiib u tahay waxaad markaa dareemaysaa ina maalintaadii dhammayd waxyaabo aad u baahnayd oo ama fruitisa ama vegetablesa oo ay ahayd jirkaaga inay galaan inay kaaga filaanayso 5 dhibcood ee aad qaadatay. waana sababaha ay waxyaabo badan jirkii uga difaacayso maadaama ay wax badan oo ay qani ku tahay. ani ahaantayda markaas waxaa jira waxyaabo badan oo ay family ahaan naga caawisay, waana waxa kaliya markii koobaad aan anigu business-ka u soo galay. marka anigu waxaan lahaa shakhsiyan waxa loo yaqaano Soomaalida tirada samboorka ama like cabur oo kala dareemi jiray. waliba waxyaabaha waqtiyada hadda oo kala duri baa haya codkaygu uu yar xidhan yahay. marka saas oo kale aan ahay aad baan u dhibaatoon jiray oo waxaan dareemi jiray cabur fara badan ama inaan like naqas way qabanayo kale. alxamdulillah waan kaga fiicnaaday. sidoo kale markaan sheekada bahashan maqlay ama layga sheekeeyay naftayda iyo hooyaday ayaan focuska saaray inaan xoog u isticmaalo. marka hooyan waxay ahayd intay dhabarka ka jabtay oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd barar gacan markaa jiifkii badnaa ee dhabarka qof markuu jabo qofkii garanaya waxa la yiraahdaa dadka jiifo oo in badan ba qofka jiif loo qoraa. jiifkii badnaa hooyo gacan baa markaa xidhantay
barar fara badan bay samaysay xanuun fara badan bay samaysay dan waxa dhacday in maadaama ay isticmaashay markii isticmaalaysay muddo sharabadan ay ilaahay kaga kaxeeyay bararkii caabuqii wixii ay lahaydba ay ka fiicnaatay hooyo oo gacanteeda sideeda ku soo noqday bal ee xanuuno kale oo jirkeeda ku jiray ay kaga wanaagsanaatay waxyaabaha aad marka isweydiinayso waxa kamid ah in maanta qof kastiba wuxuu lacag ku bixiyaa ama waxaan lacag maanta lagu helin waa caafimaadka waxyaabaha marka aadka ula yaabay bay kamid ahayd markastoo dhakhaatiirta waddanka dhakhtar dabadeed maan geen hooyo laakiin aan tagno waxaa la oran jiray seedi ma xidhna seedaha yar xidhan laakiin laf waxba ma qabto boomaatada mariya duugmo u sameeya laakiin hooyo way kasii dari jirtay barar wax kasta samayn jirtay xanuun been fara badan bay lahayd dan yacni qudradaha ilaahay waxay noqotay wax ayadana daruuri u noqotay ama maxaa la dhahdaa aan kaga soo baxnay xaaladaas oon kaga baaqsanayn dhakhaatiir waaweyn ama meelo kale aan tagno